السلام عليكم حرجينا inaad fiican tihiin sidee loo bartaa luuqad waa su'aal ay isweydiiyaan si maalinle ah malaayiin qof oo doonaysa inay luuqad barato balse waxaysan dad badan isweydiinin maxay tahay caqabaadka ka hortaagan inaad baratid luuqad cusub ama caqabaadka aad wajihi karto muuqaalkan waxaan kaga hadlayaa maxay tahay caqabaadka ka hortaagan inaad baratid luuqad aniga oo kala qaadaya laba qaybood caqabaadka gudahaaga iyo caqabaadka dibadda kadibna waxaan ka hadlayaa sideed u barataa luuqad si fudud bilaabo caqabadaha gudaha tan koobaad iska shakiga taasoo hoos u dhigta kalsoonidaada iyo awooddaada waxbarasho tan labaad inaysan jirin sabab aad u barato luuqadda mar walba oo aysan jirin sabab aad u barataa luuqadda waa mar walba luuqadda kugu adkaato ama haddii aad bilowdo aad horey usii wadi weydo mar walba oo sababta aad u baranaysaa ay tahay mid qoran mid cad mid xoog leh waa mar walba ood luuqadda baratid dul u yeelatid kuna guulaysatid barashadeeda tan saddexaad wahsiga iyo dib u dhigidda waqtiga darsiga haddii aad qorshaysatay luuqadda cashirka aad qaadanaysaa maalin walba saacad mucayana inaad qaadatid oo aad dib u dhigatid maalinba maalin bay ku amaahan inaad barataa luuqad waxay noqon wax maskaxdaada ku taagan laakiin ficilkaaga iyo rabitaankaagu waxay noqon laba iska soo horjeeda oo lid isku ah tan afraad cabsida guuldarrada adigoo ka cabsanaya in lagugu qoslo ama ka cabsanaya in aad wax khaladid tan shanaad dhammaystirni iyo filashooyin aan dhab ahayn sida inaad u qorshaysid muddo gaaban luuqadda inaad filatid agabkaad wax ku baranaysaa inay yihiin agab cajiiba ilaha aad wax ka baranaysaa ama cidda wax ku baraysaa inay tahay cid cajiiba muddo yaroo gaabana luuqadda aad heer sare ka gaadhay dhammaystirni inaad dhan walba ka fiirisid tan lixaad isgubitaan iyo isdaalin inaad isgubtid ama aad isdaalisid heer nafta aad nasniye u diido taasoo kugu kalifta luuqadda inaad horey usii wadi weydo ood meesha kaga dhaqaaqo ta u dambaysa ee toddobaad walwalka iyo walaaca barashada luuqadda ama cadaadiska la xidhiidha barashadeeda intaas waxay ahaayeen caqabadaha gudaha aan usoo gudubna caqabadaha dibadda tan koobaad habka wax lagu barayo oo liita ama in lagu baro wax aan tayo lahayn sida in lagu baro erayada ama jumladaha aan la isticmaalin in lagu baro erayga dhawaaqiisa oo khaldan ama erayga micnihiisa oo khaldan tan labaad ilaha waxbarasho oo xadidan iyo helitaan la-aanta agab waxbarasho oo tayo leh sida bugaagta iyo waxyaabaha la midka ah tan saddexaad cidhiidhiga waqtiga iyo jadwal mashquul ah haddii aad tahay qof waqtigu cidhiidhi ku yahay jadwalkiisuna uu buuxo oo mashquul yahay iyo inaad luuqad barataa iskeeni mayso tan afraad kala duwanaanta dhaqanka iyo afsireedka markaad baranaysid luuqad kale oo luuqadaadii hooyo ahayn dabcan dhaqan ahaanna waad kala duwantihiin afsireedkuna uu ka duwan yahay afsireedka luuqadaada hooyo ta u dambaysa ee shanaad taageero la-aan inaad weydo qof aad ama dad aad la barato luuqadan kulana hadasho si aad iskaga dhisto hadalka intaas waxay ahaayeen caqabadihii gudaha iyo caqabadihii dibadda aan usoo gudubno sideen uga gudubnaa caqabadahan oon u baranaa luuqad si fudud sidee loo bartaa luuqad kow inaad samaysatid hadaf xadidan oo la xaqiijin karo una qaybisid hadafkaaga qaybo yaryar tan labaad isku day inaad heshid qof ama dad aad luuqadda la baratid ood la practice garaysid si aad iskaga dhistid ku hadalka luuqadda kaasoo ah waxa u muhiimsan tan saddexaad raadi qof ku haga qaabkaad u baran lahayd luuqadda la tasha macallimiin luuqadeed ama la taliyayaal daawashada muuqaal sidee loo bartaa luuqad ama luuqadda aad doonaysid sidee loo bartaa ama qofkaaga khibrad roon luuqaddan aad doonaysid inaad baratid aad bay ku caawinaysa tan afraad joogtee barashada luuqadda oo samaysa jadwal waxbarasho oo joogto ah luuqaddu waa joogtayn wax walba camal walba ama shaqo walba oo qofka bini aadamka uu samaynayo joogtayn kama maaranto wax walboo doonaysa inaad heer ka gaadho waxaad u baahan tahay inaad joogtayso waxaad u baahan tahay inaad waqti gaara u samayso markaa waqti gaara u samee oo joogtee luuqadda tan shanaad abaalmarinta horumarka inaad u dabaaldegto guulaha yaryar ee aad gaadho haddii aad tahay qof luuqadda ku cusub oo bilow ah marka aad alifbeetada dhammaysid waa inaad u dabaaldegto maxaa yeele waa guul aad gaadhay barashada alifbeetadu waa jaranjartii koowaad ee luuqadda markaa inaad u dabaaldegto guulaha aad gaadhay ee yaryar tan lixaad duruusta aad qaadato waxaad ku dartaa akhrinta bugaagta applicationada laga barto luuqadda barnaamijyada maqalka iyo muuqaalka ah ee ku baxa luuqaddaas tan toddobaad luuqadda inaad ku noolaatid maxaan ka wadaa luuqadda inaad ku noolaatid luuqadda inaad isku hareeraysid luuqadda inaad ka dhigtid qayb ka mid a noloshaada maalinlaha ah inaad wax ku daawatid inaad wax ku akhrisid inaad wax ku qortid inaad wax ku dhageysatid luuqadda inaad ku noolaatid noqoto qayb ka mid a noloshaada wax walbood akhrinayso iyo wax walbood daawanayso iyo wax walbood dhagaysanayso inay noqoto luuqadda xataa haddaadan fahmaynin
maalmo dabadeed waxaad arkaysaa adigoo la qabsaday. marka luuqaddu ku noolaanshay u baahan tahay darsi yar oo aad qaadato oo ama saacada ama ka yara ama daqiiqada ah luuqad dhaqso kuma baran kartid. haddaad doonayso luuqad inaad horay u baratid, inaad horay u fahamtid, inaad ka guulgaadhid, waxaad u baahan tahay inaad ku noolaatid luuqadda, inaad ka dhigtid luuqaddaas qayb ka mid a noloshaada. waxaad daawanaysid, waxaad akhrinaysid, waxaad qoraysid, wax walba inay noqdaan luuqaddaas. tan sideedaad, ogow sababta aad u baranaysid luuqaddan. mar walba oo aad og tahay sababta aad u baranaysid luuqaddan, mar walba oo sababta aad u baranaysid ay tahay mid cad, mid qoran, mid awood leh ama xoog leh, waa mar walba oo aad luuqadda u dhabar adeegtid kana guulaysatid ama ku guulaysatid. haddii aysan kuu caddayn sababta aad luuqadda u baranayso, waxaa laga yaabaa inaad bilowdid laakiin maalmo dabadeed aad joojisid. maxaa yeelay sabab cad oo kuu muuqata ama kuu dhigan oo dhiirigelin aad ka heshaa ma haysatid. mar walba oo sababtu ay kuu dhigan tahay, kuu caddahay, tahay mid xoog leh, waa mar walba oo aad heshid dhiirigelin markaad daashid. tan sagaalaad, dadaal, duco iyo dulm. waa saddexdaa. ta koobaad, luuqad markaad baranaysid waxaad u baahan tahay inaad ilaahay tala saaratid oo ducaysatid, weydiisatid allah raxmaanka inuu kuu fududeeyo barashada luuqaddan kuuguna guuleeyo. ta labaad, waxaad u baahan tahay dadaal badan inaad bixiso, wax badan inaad daawatid, wax badan akhrisid, wax badan dhageysatid, wax badan qortid si aad luuqaddan uga guulgaadho. dadaal badan bay kaaga baahan tahay. tan saddexaadna waxay kaaga baahan tahay dul badan, dulqaad inaad u yeelato, samir inaad u yeelato. luuqad inaad barataay waxay u baahan tahay, haddaad tahay qof bilaabaya oo ka bilaabaya hoos ka bilaabaya oo aan luuqaddan horay usoo dhigan ama waxba uga bilowneyn, waxaad u baahan tahay markay ugu yaraato sanad baad u baahan tahay inaad si fiican luuqaddan ugu hadashid oo aad u baratid. waa markaad bixisid dadaal badan markaad bixisid, samir badan bixisid, huritaan samaysid. waxaa la yidhahdaa markaad waxaa dhahdid wax kalaad maya dhahdaa. luuqad markaad baranaysid dadaal badan aad gelinaysid, wax kalaad maya soo tiri saad luuqadda ahaa u dhahday. tan tobnaad, adeegso ku celcelinta kala fog. maxaan ka wadaa? maskaxda bini aadamku si ay wax u qaadato waxay u baahan tahay waxa ay qaadanaysa in lagu celceliyo. ku celcelinta mar kaliya lagu celceliyo waxaa laga yaabaa inaysan maskaxda si fiican shaygaas u wada degin ama waxaas macluumaadkaas u wada degin. laakiin ku celcelinta kala fog waxaa la yidhahdaa marka maanta aad 10 erabeed maanta xifdisay, waad ku celcelisay, waad iska daysay. 5 bari kadib baad ku celcelisay, waad ka tagtay. waa isla erayadii. 10 bari kadib baad usoo noqotay, waad ku celcelisay. 20 bari kadib baad usoo noqotay, waad ku celcelisay. ku celcelinta kala fog waa waxa maskaxdu si fiican ay wax ugu xifdiso. marka tusaale ahaan Soomaalidu markay leeyihiin qofkaas waxa uu xifdiyay, waxaa la yidhahdaa wuxuu u xifdiyay sida Faatixada ama waxaan u xifdiyay sida Faatixada. Faatixadu waa lagu celceliyaa. ku celcelin kala fog bay maskaxdu sida Faatixada loogu soo qaatay, hal qabsi loogu soo qaatay. marka ku celcelinta kala fog waa waxa maskaxdu wax ku qaadato, wayna kaa caawinaysaa barashada luuqadaada. markaad maanta cashir baratid, cashirka meesha ha kaga tagin. si walba cashirka u xifdisay, si walba marka cashirkaas uu dhagdhag u ahaa, laakiin muddo dabadeed waad yara ilaawi. marka soo yara booqo, u yara kaalkaale cashirka. 5 bari kadib soo noqo, 15 bari kadib soo noqo, 20 bari soo noqo, muddo dabadeed ba mar u soo noqo. waxaad arkaysaa cashirka isagoo maskaxda si fiican u degay oo sida Faatixada marka dambe u qabatay. marka ku celcelinta kala fog waxay leedahay faa'iidadaas. tan 11aad ee u dambaysa, nasasho qaado si aad u daryeesho naftaada oo u ilaaliso habbarasho caafimaad qabta. haddii aad nafta daaliso oo nasashada u diido, waxaad gaari heer aad meel ku banjarto oo horeyna u socon weydo, gadaalna u noqon weydo baad gaari. marka marxaladda iskubitaanka intaadan gaarin waxaad u baahan tahay adoo luuqadii baranaya oo dadaalaya haddana nasasho inaad qaadid. intanu waxaan isleeyahay way jiraan siyaabo kale oo luuqadda ku fududaynaya barashadeeda. haddii ay jirto waxyaaba aan ilaaway, qaybta hoose ee faalada nagula wadaag insha allah. qofku markuu wax baranayo, luuqad baranayo, qofka bilowga luuqadda ah iyo qofka luuqadda u bilaaban tahay, yacni laba kala waday maraya. qofka luuqadda ay u bilaaban tahay waqtigan aynu hadda ku jirna isagaa isbari kara. qofka luuqadda u bilaaban tahay ee wax fahmi kara, ee xoogaa yara tuurtuuran kara, luuqadda ku hadli kara, wuxuu heli karaa agab waxbarasho oo wanaagsan iyo ilo waxbarasho oo uu ka faa'iido, sida inuu muuqaalo ku daawado, filmaan ku daawado, musalsalaad ku daawado, buugaag akhriyo, applicationada wax laga barto uu soo degsado, uu ka barto. geeman waxaa jira xataa luuqadda kuu fududaynaya erayadii, jumladihii iyo wax la isku beegbeegayo baa jira oo marxalado kale leh. kuwaasna way kuu fududaynayaan. isagaa isbari kara hadda.
wuxuu joogaa marxaladu isagu isbari karo mar haddii luqadii u bilaabanta xoogaa asaaska ka dhisan yahay waxna fahmi karo waxna akhrin karo waxna yaro qori karo xoogaana turtuuran karo qofkaas isaga macallin isku noqon kara isagoo haysta ilaa uu wax ka barto oo aad u badan laakiin qofka luqadda bilowga ku ah aan weli alif iyo ba loo soo dhigin wuxuu u baahan yahay cid hooga tusaalaysa wuxuu u baahan yahay macallin wuxuu u baahan yahay cid u laqinta dadkaasoo kale marka hadday dhahaan luqad baanu isbaraynaa iyaga social mediaha iyo meelaha wax laga barto ee online-ka wuxuu ka faa'iidi karaa baan isleeyahay bugaagta yaryar ee sawirada ku qoran yihiin sawirka iyo erayga iyo sawirkiisu isa saaran yihiin iyo muuqaalada loogu talagalay ciyaalka yaryar sida youtube-ka oo kaleeto waxaad ka helaysaa barnaamijyo ciyaal yaryar loogu talagalay oo sawirkii iyo eraygii iyo ama jumladii iyo sawirkii iyo wax isla yara socdaano aad intaa wax ku fahmi kartid waagii hore qofka luqadda u bilaaban tahay iyo kan bilowga ah een alif iyo ba toona loo soo dhigin weli luqadda isku waday mari jireen cid bay cilmiga u daba fadhiisan jireen waa loo laqimi jirin cid baa bari jirta maxaa yeelay ma jirin agab waxbarasho oo wanaagsan ama tayo leh ma jirin ila waxbarasho oo qofkaasu ka heli karaya buugaag uu isagu ka baran karo wuxuu ku daawado wuxuu ku dhagaysto cid waxaa laga yaabaa xataa inuu waayo xataa dadku way kala duwan yihiin inuuba luqad bay doonaysa inay barato in isku luqad baranayaan oo arday isla noqdaan xataa inuusan helin baa laga yaabaa muuqaalkan wuu dheeraaday halkan baan idinka tegaya insha allahu tacaala waanoo muuqaalka kan xiga ilaahay damkiisa nabad iyo caafimaad baan idinka tegay asalaamu calaykum